maamulkan cusub ee gelinkii dambe ee maanta looga dhawaaqay magaalada Baardheer ee gobolka Gedo oo ay soo dhiseen maamulka wilaayada islaamiga gobolka Gedo ayaa waxa uu ka kooban yahay ilaa 7 xubnood kuwaas oo magaalada Baardheer maamuli doona sida ku cad wareegta uu xafiiskiisa oo ka soo saaray Sheekh Harun Macallin Xuseen oo ah madaxa amniga maamulka wilaayada islaamiga gobolka Gedo ahna siyahayaha jagada gudoomiyaha degmada Baardheer ayuu ku sheegay in xubnaha maamulkan cusub inay ka kooban ilaa 7 xubnood waxayna kala yihiin sida tan gudoomiyaha maamulka islaamiga degmada Baardheer ayaa waxa loo magacaabay Maxamed Nuur Cali Sooyaan gudoomiyaha maxkamadda islaamiga degmada Baardheer ayaa sidoo kale waxa loo magacaabay Sheekh Yaxya Cali Sidow halka ku xigeenka gudoomiyaha maxkamadana loo magacaabay Sheekh Ibrahim Cabdi Maxamed sidoo kale madaxa amniga degmada Baardheer ayaa waxa loo magacaabay Cabdullaahi Cabdi Daahir Maxamuud ku xigeenkiisa ayaa waxa loo magacaabay Sheekh Xasan Maxamed Dhaqane Shukani madaxa dacwada ee maamulka islaamiga degmada Baardheer ayaa waxa loo magacaabay Macallin Aadan Maxamed Ciise iyo Maxamed Wali Aadan Cabdi oo isna loo magacaabay galabta madaxa maaliyadda maamulka islaamiga ee degmada Baardheer madaxa amniga maamulka islaamiga gobolka Gedo Harun Macallin Xuseen oo la hadlayay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in maamulkani cusub aan loo dhisin qaab qabiil balse loo dhisay isla marhaantaana lagu soo xulay dad wax u qaban kara deegaanka isla markaana bulshada ku maamuli kara ku dhaqanka shariicada islaamka Harun ayaa dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday muddadii 2 bilood ahayd ee maamulka wilaayada islaamiga gobolka Gedo ay maamulayeen magaalada Baardheer waxaana uu sheegay in wax badan deegaanka ay ka qabteen isagoona soo qaatay hawshii lagu